Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu daawada kusoo dhawow Seto Academy magacaygu waa Cabdicasiis Cali Nuur maanta waxaan ka hadlayaa haddii ilaahay yidhaahdo differential amplifier differential amplifier waa amplifier kaas oo amplification ku sameeya differencega ama kala jarka laba input tusaale ahaan v1 ayaa inta taala waa input 1 v2 na inta taala waa input 2 labadaas input kala jarkooda oo amplification lagu sameeyay macnaha amplification waxaa laga wadaa gain wadata ayaa waxay noqonaysaa output marka circuit-ka noocaasa waxaa loo yaqaanaa differential amplifier haddaba waxaan raadinaynaa qaacidada lagu helayo v output halkan waxaan u bixinaynaa a halkaana waxaan u bixinaynaa b waa node a iyo node b ayaan u bixinaynaa sidoo kale waxaan ognahay in operational amplifierka non inverting iyo inverting markaan kasoo sharaxaynay bin 2 iyo bin 3 zero current ayaa dhex maraysa macnaha voltageka halkan waa aad buu resistance u badan yahay sida darteed current ma marayo marka halkan currentigeedu waa zero halkan currentiga galaana waa zero labadooda marka currentigan halkan ka yimaada kan inta ka yimaada wuxuu la mid yahay kan inta aada kan inta ka yimaadana wuxuu la mid yahay kan inta aada waayo labadan midkan iyo kan zero waxaan KCL ku apply garaynaynaa a waa node a sidoo kale hadhowta node b na waan ku apply garay doonaa node a markaa ku apply garaysid waxaan ku dhahay KCL waa taqaanaa currentiga soo galaya wuxuu la mid yahay currentiga baxaya marka currentigan dhinacan soo aday waa zero currentiga soo galaya wuxuu la mid yahay halkaas currentiga koowaad oo soo galaya maxaa lagu helayaa waxaa lagu helayaa v1 oo laga jaray va oo loo qeybshay r1 waxay la mid tahay currenti ka baxana wuxuu la mid yahay va oo laga jaray v0 oo loo qeybshay rf intaasuu la mid yahay halkan waxaa kasoo helaysaa v0 kasoo helaysaa v0 waxay kuula mid noqonaysaa minus haddii aa cross multiplication isku dhifatid rf oo loo qeybshay r1 oo lagu dhiftay v1 minus va oo laga jaray meeshan minus taanu markii cross multiplication isku dhifto r1 taanu waa tanaa intay u qaybsanta va daana minus ay noqonaysaa halkaanay imaanaysaa minus va ayay noqonaysaa minus tan guudna waa ku wada dhacsanta kadib qaybtaana ku furfuraysaa waxay noqonaysaa minus taxta kusoo furfur waxay ku noqonaysaa haddii minustan lagu dhifto plus ay noqonaysaa rf marka waxay noqonaysaa rf oo loo qeybshay r1 oo lagu dhiftay va haddii rf tan minustan lagu dhifto v1 kan lagu sii dhiftana waxay noqonaysaa minus ay noqonaysaa laakiin va iyo va soo xiji haddii minustan lagu dhiftana plus ay noqonaysaa va minus rf r1 v1 intaasay noqonaysaa halkan macnaha waxaa ka saartaaba labadan qoys ka saar intan waxaa lamida v0 lamida waxaa kaloo dhigi kartaa uga shaqeyn kartaa tanaa common ka saari kartaa maadaama laba v ay ku jirto waxay noqonaysaa 1 plus rf oo loo qeybshay r1 oo ku dhifsan va minus rf oo loo qeybshay
r1 oo ku dhifsan v1 equation 1 equation 1 u bixinaysaa intaan halkan haddana waxaa ku apply garaynaysaa KCLB halkan imaaw v2 oo laga jaray vb oo loo qaybshay r2 ay noqonaysaa v2 oo laga jaray vb oo loo qaybshay r2 ay noqonaysaa waxay la mid tahay halkan vb oo laga jaray 0 ilaa halkan waa 0 vb oo laga jaray 0 oo loo qaybshay r3 vb oo laga jaray 0 oo loo qaybshay r3 intaasay la mid tahay kadib vb inta ka soo helaysaa vb waxay kula mid noqonaysaa haddii aad equationkan adigu xalisid cross multiplication iskugu dhifo waxay kula mid noqonaysaa r3 oo loo qaybshay r2 oo lagu daray r3 oo ku dhifsan v2 adigu soo xalli waad soo helaysaa equation 2 labadan equation baa isku bedelaysaa waayo waxaan ognahay va waxay la mid tahay vb halkaa marka la joogay va iyo vb waa isku mid va iyo vb waa isku mid marka booska va ayaa bedelanaysaa waxay kuu noqonaysaa v0 waxay kula mid noqonaysaa 1 plus rf oo loo qaybshay r1 oo ku dhifsan vb intaanay kula mid tahay r3 oo loo qaybshay r2 plus r3 oo ku dhifsan v2 minus ay ku noqonaysaa halkaana kusii wadayaa minus 10 rf oo loo qaybshay r1 oo ku dhifsan v1 equation 3 sii xalli macnaha tan kor ku dhifo kuwan isku soo dhifo tan markaa ka shaqaysid waxaa kuu soo baxaysaa v0 inay kula mid tahay rf oo lagu dhiftay 1 plus r1 oo loo qaybshay rf oo u qaybsan r1 1 plus r2 r3 oo ku dhifsan v2 minus rf r1 v1 equation 4 afartan equation tan inaad soo dharaandhirisid waa ku qasban tahay tanna inaad soo dharaandhirisid vb iyo v0 inaad soo heshid kadib va iyo vb waa isku mid booska va waxaa ku bedelataa qiimihii vb kadib intaas kusoo dhidhifo waxaa kuu soo baxaysa intaa markay kuu soo baxdo baa intaas waxaa waaye equationka v output halkaa markuu soo baxo equationka v output waaye laakiin waxaa dhiman qaybtan but rejects any signal common to the two input taas halkaas markaa maraysid taas inaad proof garaysidaa rabtid waxaad dhahaysaa haddii v1 ay la mid tahay v2 commonka lagu sheegayo macnaha inaad commonkaas proof garaysidaa rabtid haddii v1 ay la mid tahay v2 ay la mid tahay maxaa dhacaya v0 waxay noqonaysaa 0 ay noqonaysaa v0 waxay noqonaysaa waayo v2 oo laga jaray v1 hadday 0 soo baxdo kuwan lagu dhifto almost waa 0 ayaa ka soo baxaysa 0 ayaa ka soo baxaysa sidaa darteed waxay diideysaa
common lama ogola inuu common noqdo lama ogola mid kale haddii aan fiirino haddii rf oo loo qeybshay r1 ay la mid tahay r2 oo loo qeybshay r3 ana r3 oo loo qeybshay r2 hadday la mid tahay labadaas isla mid yihiin qaacidadan waxay kusoo gaabsamaysaa v0 waxay la mid noqonaysaa r1 oo loo qeybshay rf oo lagu dhiftay v2 minus v1 intaasay la mid noqonaysaa waa haddii rf oo loo qeybshay r1 ay la mid tahay r3 oo loo qeybshay r2 marka operational amplifierkan differential amplifier intaasuu sheegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu